maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada Soomaaliya ku soo batay gabadh loogu hadaleysta badan yahay Samiida Nuruddin Nazaar taasoo loo doortay saliyaha degmada Shibis ayadoo 23 sano jirta ayaa loo magacaabay xilka taliyaha degmada Shibis gabadhan ayaa hadda u taagan siday bulshadeedu wax ugu qaban lahayd dadka magacaygu waa Samiida Nuruddin Nazaar 23 jir ahay waxaan ka imaaday dalka Norway soo barbaaray haddana waxaa ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed weliga waa jeclaan ciidanka inaan ku biiro oo yacni ciidan noqdo qof askari ah oo shaqaysta markaas bariis wato waagaan yaraa markaas xataa laakiin maslihin Soomaaliya inta ciidanka Soomaaliyeed ku biiraysaa marka dareeska qorto waxaa dareemaa mas'uuliyad weyn waxaa dareemaa awood iyo dhiiranaan iyo sharaf wax walba markaa shaqada soo aado oo arko shacabka oo si nabad ah kusoo toosay oo ardayda iskuulada u socoto suuqa furan yahay gawaarida iyo ganacsiga si nidaam ah u socdaan farxadan la qiyaasi kana aadaynaa وقبل كنا نقول لك وحول القاء وقبل كنا دقح القاضي هذه أهالي هذه دبق الجنون هذه أهالي هذه مثل النساء هذه أهالي هذه قري القاضي هذه أهالي لف دبرك وطن كانيتين ودمرك ترى واسو زيادة ساعة وعيدك بوليس كدمرك حتى عندها نوع سكتر أو يعني سكيورتي حتى شغالها ولد المكاسبين dhalinyarada oo shacabka Soomaaliyeed ee arkaan markaas inaa shaqeynayo oo darees aawato way weydiiyaan qaabka uu soo biir lahaayeen ciidanka iyo yani wadada ay mari lahaayeen anna waxaan ka caawin karo waa ka caawiyaan